Asalaamu calaykum dhammaantiin waan idin salaamay meel kasta oo ay joogtaan. Real Madrid waxay ciyaar barbardhac la soo gashay Las Palmas wareegii saddexaad ee La Ligaha. Hase ahaatee Real Madrid hadda waxay leedahay 5 dhibcood, taas oo saddexdii kulan ee ugu horeysay ee La Ligaha ay lumisay 4 dhibcood. Haddii aan u nimaano kulanka Las Palmas, 5 daqiiqo ee ugu horeysay kulanka waxay awood u yeelatay inay gool ka dhaliso Real Madrid. Hase ahaatee half-time-kii waxaa lagu kala aaday halanka eber. Ciyaarta markii half-time-kii dambe loo soo laabtay 69 daqiiqo markii ay maraysay, Real Madrid waxa ay heshay penalty, taas oo khaladkeeda ay lahaayeen ciyaartoyda Las Palmas. Penalty-dii waxa uu riday Vinicius Junior kaas oo ansixiyay. Hase ahaatee sidaas ciyaartu waxay ugu soo laabatay 1-1. Hase ahaatee Real Madrid waxay isku dayday in badan inay ciyaarta saddexda boonti qaadato oo Las Palmas ay u saarto, laakiin way u suurtageli weyday. Kylian Mbappe saddexdii kulan ee La Ligaha ugu horeysay wax gool ah uma dhalin Real Madrid, taas oo ka dhigan Real Madrid awoodeeda iyo sida ay u muuqatay inay hadda wax ka dhiman yihiin. Tani waxay dan ugu jirtaa Barcelona maadaama saddexdii kulan ee La Ligaha ugu horeysay ay soo badisay, halkaasna ay 4 dhibcood kaga sareyso Real Madrid. Real Madrid haddii ay doonayso sanadan inay ku guuleysato La Ligaha mar kale, waxaa loo baahan yahay inay sidaan wax ka bedesho oo tayadeeda iyo balaayarinta u jooga ay muujiyaan inay yihiin kuwo awood leh. Dhammaantiin waa mahadsantiin. Muuqaalkaygan like saar. Magacaygu waa Bilay Sports.